nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya ayaa lagu xidhay kadib markii lala xiriiriyay qarax bamba ah oo lala eegtay kaniisad ku taala magaalada Kasindi ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Afhayeen u hadlay militariga Dr. Congo ayaa sheegay in qofkaasi looga shakiyay weerarka lagu xidhay xadka Kasindi saacado uun kadib markii uu qaraxu dhacay. dhinaca kale wargeyska Daily National oo soo xiganaya ciidanka la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa ku waramaya in nin 29 jir ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Mukhtaar Garaad loo qabtay weerarka. ninkaasi ayaa ka soo jeeda magaalada Wajir sida uu wargeysku xusay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa cambaareeyay weerarka wuxuuna wacad ku maray in cadaaladda la horkeeni doono dambiilayaasha. ugu yaraan qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 17 qof halka 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Axmed Midnimo wararka Honkebel. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه خطيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسعو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaadka شيء كبير السلسعو kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Samtel caalami